Khilaafka ba'an ee u dhexeeya Kevin De Bruyne iyo Thibaut Courtois ma ahayn oo kaliya sheeko xan ah, balse waa mid ka mid ah dharbaaxooyinkii ugu xoogganaa ee abid ku dhaca xiriirka shakhsiyadeed iyo kan xirfadeed ee xiddiga kubadda cagta ciyaaro. Tani waa sheeko ka dhex dhalisay dillaac weyn qolka labiska ee xulka qaranka Belgium, iyadoo burburisay saaxiibtinimo soo jireen ah isla markaana beddeshay masiirka jiilkii ugu dahabisanaa ee dalkaas. Haddaba daawade, nala sii joog ilaa dhammaadka muuqaalkan si aad u ogaato xaqiiqooyin cajiib ah oo aan weli fagaaraha la keenin, iyo go'aankii lama filaanka ahaa ee uu Kevin De Bruyne qaatay markii uu ogaaday warkan oo dhan. Hase yeeshee, is-xasuusin, ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka, channelkana subscribe dhahdo. Mahadsanid. Aan u sii gudagalno muuqaalkeena. Bilowgii xiriirka saaxiibtinimo, labada ciyaaryahan waxay ahaayeen saaxiibo dhow tan iyo carruurnimadoodii, iyagoo ka soo wada baxay akadeemiyadda kooxda Genk ee dalka Belgium, sidoo kalena waxay u soo wada ciyaareen si wadajir ah kooxda Chelsea. Sanadkii 2012, Kevin De Bruyne wuxuu xiriir jecel la lahaa gabar lagu magacaabo Caroline Lineker oo u dhalatay dalka Belgium. Xiriirkaas wuxuu ahaa kii markii dambe sababay khilaafka weyn ee u dhexeeya Kevin De Bruyne iyo Thibaut Courtois. Gabadha u dhaxda Kevin De Bruyne ee Caroline ayaa waxay u safar tagtay magaalada Madrid sanadkii 2013, halkaas oo uu Thibaut Courtois joogay isagoo amaah ugu ciyaarayay kooxda Atletico Madrid. Intii ay halkaas joogtay, waxay xiriir hoose la samaysay goolhaye Courtois. Sababta ay Caroline u samaysay tallaabadaas, Caroline waxay markii dambe sheegtay inay u samaysay arrintaas si ay uga aarsato Kevin De Bruyne kadib markii uu isaga ku khiyaameeyay xagaagii 2012 mid ka mid ah saaxiibadeeda ugu dhawaa. Kevin De Bruyne wuxuu arrintan ogaaday xilli uu amaah ku joogay kooxda Werder Bremen ee ka dhisan horyaalka Bundesliga ee Jarmalka. Wuxuu sheegay inuu aad u naxay markii uu maqlay inuu xiriir ka dhexeeyo saaxiibkiisii xulka iyo saaxiibtiisii nolosha. Saameyntii qolka labiska Belgium, khilaafkan wuxuu halis geliyay midnimada xulka qaranka Belgium. Tababarihii xilligaas, Marc Wilmots, wuxuu la tashaday Kevin De Bruyne si uu u ogaado haddii uu doonayo in Courtois laga saarayo xulka. Hase yeeshee, Kevin De Bruyne waxa uu qaatay go'aan geesinimo leh. Inkasta oo uu la daalaa dhacayay xanuunka khiyaanada uu u geystay Courtois, haddana Kevin De Bruyne wuxuu muujiyay geesinimo iyo basal weyn. Markii uu tababaraha xulka weydiiyay haddii Courtois laga saarayo xulka iyo in kale, Kevin De Bruyne wuxuu ku jawaabay, inkasta oo aanan isaga shakhsi ahaan u jeclayn, haddana waa goolhaye weyn, xulkana isaga ayuu u baahan yahay. Go'aankaas wuxuu badbaadiyay riyadii jiilka dahabiga ah ee Belgium. Sanadkii 2014, De Bruyne wuxuu buuggiisa taariikh nololeedka ku qoray sheekadan, taasoo keentay in arrintu ay mar kale adduunka ku baahdo oo ay noqoto mowduuc weyn. Aamusnaanta Courtois, goolhaye Thibaut Courtois marnaba si faahfaahsan uguma hadlin arrintan dhinaciisa, wuxuuna doorbiday inuu xoogga saaro ciyaartiisa, isagoo iska ilaalinayay iska hor imaad toos ah oo dhanka saxaafadda ah. Kala fogaanshaha garoonka dibaddiisa, tan iyo markii uu khilaafka dhacay, labada ciyaaryahan ma noqon saaxiibo. Inkasta oo ay garoonka dhexdiisa isula macaamili jireen si xirfadaysan, haddana nolosha gaarka ah kuma wada xiriiraan. Saameynta tartamada caalamiga ah, xulkii dahabiga ah ee Belgium ayaa lagu dhaliilay in dhibaatada gudaha ee ciyaartooyda ay qayb ka ahayd inaysan ku guuleysan koobab waaweyn, iyadoo xiriirka labada xiddig ee ugu muhiimsan xulka uu go'naa. Kulamada Manchester City vs Real Madrid sanadihii ugu dambeeyay, labada xiddig waxay dhowr jeer isaga hor yimaadeen tartanka Champions League. Mar kasta oo ay kulmaan, saxaafadda ayaa dib u soo kicin jirtay sheekadooda. Goolhaye Thibaut Courtois ayaa isaga fariistay xulka qaranka Belgium kadib khilaaf uu la galay tababaraha cusub ee Domenico Tedesco, halka De Bruyne uu yahay kabtanka xulka. Tani waxay soo afjartay waqtigii ay qolka labiska ku wada jireen bog cusub iyo nolol farxad leh. Inkasta oo ahayd duufaan weyn, haddana Kevin De Bruyne wuxuu guud ahaan ka gudbay boggii madooba ee Caroline. Maantana wuxuu nolosha la wadaagaa xaaskiisa Marcella oo u dhashay carruur qurux badan, isagoo helay xasillooni qoys iyo guulihii garoonka ee uu hadafkeeda lahaa. Sheekadani waxay weli tusaale u tahay sida ay nolosha gaarka ah
u saameyn karto xirfadda ciyaaraha, laakiin waxay sidoo kale muujisay xirfadda uu De Bruyne muujiyay isagoo danta xulkiisa ka hormariyay ciilkiisa shakhsiga ah. Haddaba saaxiibayaal, waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii sheekadani. Waxayna tusaysaa in danta guud markasta laga hormariyo ciilka shakhsiga ah. Adigu daawade, sidee u aragtaa go'aankii De Bruyne? Noogu soo qor aragtidaada qaybta commentiga hoose. Hana ilaabin inaad subscribe saarto kanaalka. Mahadsanid. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.